xaflad lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee dhawaan ku guuleystay tartankii madaxtinimada ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. xafladaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyay qaar kamid ah ganacsatada iyo culimada ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo uu hormuud u ahaa Dr. Sheekh Maxamed Ibrahim Shakuul. xafladaasi ayaa waxaa mas'uuliyiintii ka qayb gashay kamid ah safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo sidoo kale xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi xildhibaan Yuusuf Xasan, siyaasiyiin, culimada, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. iyadoo mas'uuliyiin kala duwan oo ka hadashay xafladaasi taageerada ah waxa ay u jeediyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud talooyin la xiriira sidii markaasi uu guuleysan lahaa xilka uu ku dhawaan ku guuleystay. waxayna madaxweynaha cusub u soo jeediyeen hambalyo iyo duco iyo sidoo kale talooyin wax ku ool ah oo la xiriira sidii looga miro dhalin lahaa geedi socodka nabadda Soomaaliya. runtii fursad ka weyn madaxweynayaasha kale ayuu Xasan Sheekh haystaa. fursadda ka weyn waxa weeye inuu 4 sano soo maamulay. horay buu dhahay qabyo ninkeeda dhameystira. marka qabyo ninkeeda dhameystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhameystiro wixii ka dhimanaa iyo wixii u kordhay sababtoo 4 sano wuxuu arkayaa markuu banaanka ka joogo 4 sano wuxuu arkayaa wixii qalad ka dhacay iyo meeshuu ka gaabiyay iyo meeshuu u baahan yahay inuu maaragtay wax ka qabto ayuu arkayaa. marka hala taageero madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa iyo xukuumadda u dhisidooda hala taageero. tan kale dawladdu waa isu dhiib weeyo. ninkii hore yaan la eedaynin waxba. madaxweyne soo shaqeeyo weeye, shaquu soo qabtay, shaki kuma jiro inuu shaqo soo qabtay. marka haddii mid kasta la dhaho shaqo ma soo qaban haddaan koyneen yahay haddaan koyneen haddii la dhaho oo hadda anaa bilow ah haddii la dhaho taasi tala maaha. waxaan u hambaliyeynayaa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud. hambalyo iyo bogaadin baan u gudbinayaa guulaystaan leeyahay madaxweynaha cusub. tan labaad waxaan doonayaa inaan u hambaliyeeyo madaxweynihii hore sida sharafta leh xishmadda leh oo isaga gudbiyey mas'uuliyadda madaxtinimada dalka Soomaaliya. waa wax aad iyo aad aan ugu faraxsanahay sababtoo ah lama filanaynin doorashada Soomaaliya inay si nabad ah u dhacdo. dadka faallaya siyaasadda had iyo jeer waxayna oran jireen Soomaaliya khatar bay ku jirtaa. marka waxaan ku leeyahay adiguna ilaahay garabkaaga ha galo. waxaan marka hore u hambaliyeynayaa madaxweynaha la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xilka allaha kuu fududeeyo. ninka xil loo dhiibay waxaa la yidhi waa nin mindi saawir ah lagu gowracay weeye. marka ilaahay xilka ha kuu fududeeyo. waxaad madax u tahay ummad Soomaaliyeed oo dhib weyn haysto. dhalinyaradeedii wax badaha ku liday, wax maxaan ku idhaahdaa shabaab ku biiray, wax shabaab laayay, wax gaajo u baaba'ay. ninka maanta Soomaaliya madaxweyne looga dhigo wallahi dhib weyn baa haysta. ilaahay ha u fududeeyo. xuduudka Kenya iyo Soomaaliya oo wadaagto waa dheer yahay. lama ilaa border point 1 Mandera. midii ugu horeysay oon ka baryayna madaxweynaha cusub Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud waxa weey tafadal ku dadaal sifaa xuduudkaanayto na loo furo. madaxweyne waxaan ilaahay kaaga baryaynaa idinkuna aaminina ay dhahdaan marraba inaad noqoto baal dahab baad hadda Soomaaliya ka gashay taariikhdeeda oo madaxweynihii ugu horeeyay ee labaad la doortay Soomaaliya. waxaad aaminta idinkuna ku dhahdaan in uu noqdo madaxweynihii dhammaystiri lahaa dastuurka Soomaaliya. madaxweynihii qobqobka iyo faraaruqa iyo goboleysiga iyo qabyaaladda Soomaaliya hareereysay dhabarka ka jibisana ka saari lahaa madayn lahaa Soomaaliya aaminina. madaxweynaha la doortay Dr. Xasan Sheekh ahna madaxweynihii hore Soomaaliya ahna macallinkii hore bulshada haddana madaxweynaha la doortay. dabcan la taliyo yeelan doonaa. waxaan ka codsanayaa la taliyaasha
uu yeelan doono inuu kuwa saxa ka dhigo sidoo kalena uu dhagaysto taladooda si eedu uga harto oo aan loo eedin ilaa ammaan mooyaane badanaa la taliyaha waa la keenaa laakiin lama dhagaysto taa weeyaan khaladku shaqsi kaliya waxba ma qaban karo waa in uu dad ehel u talada keensado xafladan waxay ahayd xaflad duco iyo soo dhaweena dadkana halkaan aad ugu dabaaldegeen waxaan sidoo kale aan ugu mahad celinaynaa dhammaan dadkii halkaan ay ka hadlay ee kala duwanaa xafladan ay ka hadlay iyagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaa soo dhammaaday kambeynkii lagu jiray ayaa soo dhammaaday dadka wixii kala gaaray waa laisku cafiyey 4 sano waxaan rajaynaynaa in lala shaqeeyo madaxweynaha cusub maxay ahayto la doortay ee dib loo doortay madaxweynaha cusubna waxaan ka rajaynaynaa inuu dalka waagtii Soomaaliya waa dal barwaaqo ah haddana dadkiisu ay baahan yihiin waxaan rajaynaynaa in ay laga baxo baahida dhalinyarada shaqo la'aan baahsan ayaa hayso waxa ugu horeeya ee madaxweynaha uu qaban doono insha Allah waxaan rajaynaynaa in shaqo abuur uu u sameeyo dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil